بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, salaanta ciisada ee sharafta leh. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacda salaan, maanta oo ay xad tahay taariikhduna ay ku beegan tahay 1 December 2019 waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada inaan u soo jeediyo cinwaan micno weyn xambaarsan. cinwaankaas oo ku saabsan dowrka ay dhalinyaradu ku leeyihiin hoggaanka dalka iyo nabadeynta bulshada Soomaaliyeed. walaalayaal, sidaan wada ogsoonnahayba dhalinyaradu waa xoogga iyo mustaqbalka uu dal u leeyahay, wadan kasta uu leeyahay. marka dhalinyaradeenna Soomaaliyeed waa xoogga iyo mustaqbalka ee qaranku u leeyahay way walaalayaal. marka waxaan rabnaa dhammaan dhalinyarada dal iyo dibadba joogta inaan maanta ciwaanka ugu soo gudbiyo dowrka ay dhalinyaradu ku yeelan karaan hoggaanka dalka, maslaxadda, nabadeynta iyo fididda diintaba intaba inaan marka maanta barnaamijka kala hadlo. sidaan wada ogsoonnahay markasta waxaynu u noqonnaa taariikh ahaan waxa weeyaan diin ahaanba inaynu suubanaheena nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu kaga dayanno wixii waxa weeyaan sunno ah. nabigu calayhi salaatu wasalaam saa wada ogtihiinba dhalinyarada waxa uu siin jiray muhiimad gaar ah. nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada waxa uu la dhaqmi jiray si wanaagsan. nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada waa uu dhiirigelin jiray, xilal buu u magacaabi jiray. waxa weeyaan dhalinyaro 15 jir ah buu hoggaan umadeed u dhiibi jiray. waxaan ogsoonnahay in islaamkii nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyaradii noocaas ahayd in ay guulo muhiima ay islaamkii iyo muslimiinta u soo hoyaan. marka waxaanu ka qacbir qaadanaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam siday dhalinyaradu ugu gurmatay. nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii ugu horeeyay oo diinta kala shaqeeyay oo hoggaanka kala shaqeeyay oo waxa weeye fatuuxadaha waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam oo barida waxa weeyaan diinta waxa weeye fidideeda intaba nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro buu kaashan jiray. marka anagu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka cibir qaadanayna baan waxaan rabnaa dhalinyaradeenna Soomaaliyeed inaynu dalkeena iyo qarankeena aynu uga faa'iideyno. waxa in hubaal ah oo aan ogsoonahay 70% 80% dhalinyarada Soomaaliyeed in aysan ka soo bixin dowrkii ay dalkan ku lahaayeen. oo waxa weeyaan haday noqon lahayd fidinta waxa weey diinta, waxa weeyaan cilmigii, waxa weeyaan horumarintii, waxa weeyaan cilmiga, waxa weey nabadeyntii, waxa weey ka shaqeyntii, waxa weeyaan dalka, waxa weey samafalihii, hoggaankii dalka. waxa moodaa inta badan inaysan dhalinyaro ka soo muuqan. walidaalika waxaanu rajaynaynaa oo aan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku baraarugaan oo ay ogaadaan in dalkani uu iyaga sugayo, inay iyaga waxa weey hoggaanka dalka ay qabtaan, inaysan iyagu ay noqdaan dadka ugu horeeya oo dalkan lagala tashado oo waxa weey wax ka bedela inayna noqonaan loo ka rajeynaya insha Allah. nabigu calayhi salaatu wasalaam Imr bin Hamza oo waxa weeyaan 17 jir ah buu wuxuu ka dhigay waali Najraan ah. isagoo 17 jir ah buu mas'uuliyad inta la eg nabigu calayhi salaatu wasalaam u saaray. marka ma oran karno micnaha waxa weey dadka waxa weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala uu doortay, ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weey cilmiga uu siiyay waxa weey inaynu ku dayanno oo waxa weeyaan iyaga aynu raacno oo aynu iyaga wax ka baranno ayaan rajaynaynaa insha Allah dhalinyaradaas. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam Ali bin Abi Talib iyo Muaad ba waxa u diray Yaman si ay uga qayb qaataan waxa weeye fidinta diinta oo ay dadka islaamka u gaarsiiyaan oo hoggaan umadeed oo islaam ah
baa loo dhiibay marka waxa muddo dhalinyaradena maanta inay ku fakarayaan waxa weeyaan wax aanan loogu cabiri karin oo aan halkan laga sheegi karin marka dhalinyarada waxa way Soomaaliyeed dalka dibadiisa iyo gudihiisaba joogaba inay fahmaan xaqaa'iqda dalka oo ay ogaadaan dhibaatada dalkan ka jira oo ay u qalab qaataan oo waxa weeyaan xalka ka shaqeeyaan oo ay nabadeynta ka shaqeeyaan oo ay walaalahood u gurmadaan oo cilmiga iyo aqoonta ay barteen ay walaalahood kala gaarsiiyaan dalalkii ay dhaxmaraan waxa weeyaan dalkii waxa way aqoon iyo cilmiga ay dadka waxa way baraan baa looga fadhiyaa sidoo kale waxa rabaa inay ka shaqeeyaan nabadeynta iyo go'aanka masiiriga ah ay qaadanayaan waxa way bulshada inay iyagu waxa way tala ay ku leeyihiin oo ay tala ku yeeshaan oo ay is-abaabulaan oo hoggaanka dalka ay ka shaqeeyaan oo waxa way wixii hawla iyo wixii activity operation ah loo baahan yahay inay dalkan qabtaan way waxa way dhalinyaradu waa xooga iyo mustaqbalka dal kasta uu leeyahay hadiina aynu dhalinyaradeennu aynu iskaashan oo aynu cilmiga iyo horumarka iyo waxbarashada iyo waxa weeyaan horumarinta aynu ka shaqeyn hada dalkeena waxa way annaga ayaan waxa way dhulka la galnay marka waxa la rabaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo waxa way dareen uu ku jiro waxa la rabnaa inuu waxa way dareenkiisa oo uga faa'iideeyo iyo xoogiisa uga faa'iideeyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu uga faa'iideeyo walaalayaal baan rabnaa marka dhalinyaradu inay isku xusul duubnaadaan gobol kasta ay joogaan ay ogaadaan inay awoodii iyo waxa weeyaan xoogii mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay ay yihiin inay ka shaqeeyaan diintii inay wax noqdaan qudaa inay noqdaan waxa weeyaan daaci inay noqdaan dad diinta ka shaqeeya inay noqdaan dad waxa weeyaan walaalahood kala diinta gaarsiiya waxa weeyaan dadka wacyiga al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ay noqdaan dadka waxa weey wanaaga iyo diinta iyo wanaaga ay faraan dadka xumaantana ay ka reebaan waxa way qodobka iyo waxa way ubuucda waxa weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar sidoo kale inay ka shaqeeyno nabadda inaynu ka shaqeeyno caawimaadda inaynu ka shaqeeyno waxa weeyaan aynu dadka walaalaheena u gargaarno aynu samafalayaal noqono aynu dadka u shaqeeyno walaalaheena Soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta intaba aynu waxa weeyaan dalka aynu hoggaankiisa ka talino oo aynu waxa way u shaqeeyno dalka waxaan u baahanahay dhalinyaro noocaas u xisaabtama oo dalkii laga waxa way qayb geliyo oo waxa weeyaan diinta iyagu ugu horeeya oo waxa weeyaan kaga dayada waxa weeyaan asxaabtii iyo waxa way taabiciintii inaga horeeyay meesha ay mareen iyo sida waxa weeyaan diinta ay kor ugu qaadeen iyo sida dadaalka iyo juhdiga ay ugu bixiyeen waxaynu rabnaa inaynu waxa weeye aynu diinteena aynu baranno inaynu hoggaankeena waxa way aynu waxa way qaadano inaynu dadkeena iyo dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena aynu u shaqeeyno waxa weeyaan loo ka baahan yahay inaynu qaadano way marka dowr intee la eg bay ay dhalinyaradu ku yeelan karaan hoggaanka dalka iyo maslaxada inaynu waxa way noqono waxa way dadkii role model-ka ee Soomaalidu iyo dhaxway dhamaan ummadda ay ku dayan lahayd inay noqono inaynu waxa way tusaale u noqono ummadda Soomaaliyeed ka dhalinyaro ahaan inaynu waxa way wax wanaajino nabadeynta ka shaqeeyno ilaa inta burburkii waxa way dhalinyaradu wax bay baranaysaa aqoon bay kamanaysaa cilmi bay baranayeen hadana dhab ahaan dowrkii ay ku lahaayeen wali ma aysan qaadan marka inay fahmaan oo ay waxa weeye si waxa weeye aqliyan iyo si logical ay u fahmaan in dalkan uu dalkoodii yahay dadkuna ay dadkoodii u yahay ay waxa weeyaan iyagu ay ku xisaabtamaan way inaynu waxa weeye dawlad goboleedyo inaynu waxa weeye meelo kale inaynu si kale isu qaybino ma inaynu anagu wax way isu duuban aynu u wada shaqeyno waxa weeyaan aynu ka shaqeyno danteena iyo danta dalka iyo dadka intaba aynu ka shaqeyno way mas'uuliyadeena maanta barnaamijka iyo qodobadiisa ugu waaweyn intaas waxa way ugu door corona waxa way insha Allah waxaan idin rajeynayaa waxa way khayr iyo baraaro waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryeena inaynu waxa way anagu isku duuban dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena u shaqeyno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.